inta badanna xeerasha noocaas ee kufsiga ka hadlaya waxyaabo kale oo kufsiba aan la xidhiidhin oo shareecadeena iyo dhaqankeennaba khilaafsanna waa la raaciyaa waa lagu dhex qariyaa xeerkii berigii dhaweyd xeerkii kufsiga aadka looga hadlay waddankeena alxamdulilah waa tii xeerka madaxweynuhu dib u celiyey jazaa allahu khayran waxaanan maqlayay dadka qaarkood oo madaxda ka mida soomaalida oo lahaa xeerka somalilan baa laga ansixiyey puntland baa laga ansixiyey xamar in laga ansixiyo maxaa lagu diidaya marka iyagana waxaan u sheegayaa ka somalilan laga ansixiyey iyagana waxaan kula talinayaa waxaa dhacaysa tusaalahaan inanbaa ayaa la kufsanayaa dabeetana xaal wax la dhaa baa laga qaadaya ninkii kufsiga dee hadduu ninku gabadhii ka zinaysto kufsi kaga sinaystay dee xuquuq baa ka dhalanaysa oo ka waajibaysa hadduu bikrad jabiyey bakaaradaasi waa magteedii hadduu ifdaa ku sameeyey tusaale ahaan oo isu faruuray iyaduna waa mag dhammaystiran waxaa kaloo ay yeelanaysaa sadaaq mahrulmithlina way ku yeelanaysaa nabarra hadduu u geystay iyagana waa looga xaqaya waxaa kaloo dee xaq ilaahayna waa ku waajibinaya haddee zinadaasi ku sugnaato waa la xadkii baa lagu dhufanaya haddaanay zinadu ku sugnayn zinadu qiraal ama afar markhaati bay ku sugnaataayoo farta oo fargalka ku jirta arkaye waxyaabaha kale ee dee si markhaatiyaal intaa ka sokeeye ku sugmi karayo gabadhi dee xaq bay u yeelanaysaa waana masale maanta masaladaasi lagu wareeray masalada ku saabsan kufsiga oo aadna loogu soo celceliyo horta dhulkeennii waxaa laga dhigay dhul gebigiisu wada kufsiya oo inuu kufsigu aad inoogu badan yahay baa laga dhigaa had iyo jeerna dad baa ugu gabbanaya xeerar shareecada khilaafsan in ummadda loo sameeyo waxa jirana waxaa lagu xakamayn karaa waa kow dadka iimaankooda la xoojiyo laba cuquubaadka shareecada u dejisay oo kuwan xeerarku ay sheegayaan ka adag in lagu fuliyo dadka faldambiyeedka sameeya waxaanay sheegayaan oo dhan waxaa ka adag cuquubaadka ay shareecadu u sheegtay baa ka adag mar dambey miirsaan dadka qaarkood marka la tusay la idhaa bal shareecadu waxay tidheeg iyo waxay ka xukumtay masaa'isha bal gabadha xoolaba iyagu uma soo qaadaan gabadha isama ogin qofkunbaa xadhig iyo wuxuun baa lagu cayuqaado farjigeedu isticmaalay wax mahrulmithli kama waajibiyaan xeerasha yacni hadduu bikrad jabiye hadduu isu farro wax laga soo qaadaa ma jirto inta badanna xeerasha noocaas ee kufsiga ka hadlaya waxyaabo kaleoo kufsiba aan la xidhiidhin oo shareecadeenna iyo dhaqankeennaba khilaafsanna waa la raaciyaa waa lagu dhex qariyaa xeerkii berigii dhaweyd xeerkii kufsiga aadka looga hadlay waddankeenna waanu akhrinay oo dee waxyaaba fara badan oo aan kufsiba shaqo ku lahayn oo shareecadana toos uga hor imanaya oo dhaqamadii gaalada ah oo ilaa ninka iyo xaaskiisa waxa dhex maraya dee taabanaya ayaa lagu dhex qarinayay alxamdulilah waa tii xeerka madaxweynuhu dib u celiyey jazaa allahu khayran isagoo saxanna golaha wakiiladu way ansixiyeen golaha guurtidaa weli haysta muddo dheeroo sanadaabay haystaan xagga madaxweynehana umay gudbin golihii wakiiladana kumay celin hadda waa kii saxnaa halkaasaa bahalkii lagu dabray xeerkii saxnaa ee shareecada waafaqsanaa golaha guurtidu ku dabrayey iyagaa sheegi doona waxay u haystaan golaha guurtidu imaa inay madaxweynaha u gudbiyaan oo imaa inay golaha wakiilada dib ugu celiyaan waxaanan maqlayay dadka qaarkood oo madaxda ka mida soomaalida oo lahaa xeerka somalilan baa laga ansixiyey puntland baa laga ansixiyey xamar in laga ansixiyo maxaa lagu diidaya marka iyagana waxaan u sheegayaa ka somalilan laga ansixiyey inaanu ahayn kii gaalada iyo cidda dabada ay ka wadaan ay soo sameeyeene dhaqan xumada xambaarsanaa kaa somalilan way diiday culimadeedi iyo shacabkeedi iyo madaxdeedu way diideen kaas
laga ansixiyay mid shariicada waafaqsan buu ahaa ilaa heerka aan sheegay gaadhay iyagana waxaan kula talinayaa in ay culimadooda iyo dadka diinta iyo dhaqanka yaqaana ay u bandhigaan xeerka imika la isku haysto dabeetana wixii shariicada khilaafsan dee laga saaro ma yukhaalifu sharca allah qofka dee taa diiday ee yidhaahda maya isagoo shariicada khilaafsan hala meel mariyo kaasi dee halis buu ku jiraa isagaa halis ku jiraba laakiin waa in shariicada loo bandhigo ilaahay wuxuu yidhi fain tanazactum fii shay farudduuhu ila allahi warasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir wax allaalo wixii la isku qabto waa in shariicada loo celiyo wixii shariica diidana waa marduud man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa rad dad muslimiinana waa imin wixii shariicadu ay ogolaatana xeer ha noqdo qaanuun ha noqdo wax kale ha noqdo lama diidayo wixii shariicadu waafaqsana shariicada aan ka hor iman ahayn shirkadda isgaadhsiinta casriga ah ee Somtel abaalmarinta macmiil noqon milkiile in ka badan 14 kun oo macmiil ayaa ku guuleysan doona hadiyada ay kamid tahay maalgelin u dhaxaysa $1,500 ilaa $20,000 Mareykanka ku shubo $0.5 oo kaliya oo isticmaalaya adeegga e-dahab